بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسر أصحاب تقاليجا أكون سودا وهذا يوتيوب كيجا شكري لا وقتاس مركلة أي فيديو عصب أيام كل منا هذا جرال كنا كل عصب تهاي أو في هاي فيديو هنكيك وجوري وعرفته فلان سبسكرايب نوصار يوتيوب كهذا هرنو لجوتنا وما هتصنتاي فيديوها لايك نوصار وأنكم هتصنتين دعوة شذا فيديو يا شيء كسودا وهذا شكذا إن ما أنت يكون صلى الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد شكذا أننا إحنا بلاوته مقالة مصر سنة كلابا كون يكو يلواتن كمقالة لدخوا بورسعيد وحكى على أرين آذ اللياب لأرين تاسوعيد قول كويا لا حافظها مقالة داسي إن قف كادو سو أجمرو هبينكي هالكس تضبط هبين نمو تضبط ساعة هبين نما إنه يقول كسدبك كعاي مركا إيه حافظنا نسكوي ماذان ولا ما قد دبكاس هذا الدمي أنت على سو قارن دبكاس أسرع ياسي إسكيس قدامي هذا محيط القصة دبكاس يقول جاس بربلين بكتاجنا وحوها أنا جاي إذا كده بكينايا أنا بلعب تشي كذا waxaa jira wiil iyo gabar kamid ah dadka magaalada oo jeclaa xiriirna lahaa muddo dheer markii ay in muddo xiriir lahaayeen wuxuu wiilka go'aansaday in uu doonto gabadhan oo familigeeda ka doonto waa uu soo doontay waxa uuna u sameystay wuxuu soo doontay dabcan laguma meherin laakiin doonasho kaliya ay ku joogeen qadiibadiisa ayay ahayd oo waxay sugayeen xilliga wiilku iska soo diyaariyo kadibna oo meherka iyo arooska iyo waxaasi ay dhacaan kadib waxaa dhacday muddo markii ay wiilkii gabadhi sida iskugu doonanayeen in gabadhii khilaaf inuu soo dhex gala labadooda khilaafkii wax yar oo markii hore ka bilowday laakiin aad ayuu u sii weynaaday heer ay gabadhi ku fikirtay in xiriirkan ay xariga u jarto oo ay ka baxdo waxayna u imaada wiilkii waxay siibtay faraantigii ay ugu khadubnayd indhaha ay uga dhifatay waxayna ku dhahday waxaa heli doontaa gabar aniga iga wanaagsan anigana waxaa raasanaa mid adiga kaa wanaagsan ina nabadgeli way ka dhaqaaqday iyada oo aan sugin jawaabta uu ka bixin doono ama ficilkiisa waxa uu noqon doono midna wiilkii aad ayuu u yaabay sababtu ay tahay gabadhan aad ayuu u jeclaa wuxuu bilaabay wiilkii inuu waco si uu u qanciyo uuna u weydiiyo sababta waxay tahay iyo khilaafkooda inay xaliyaan laakiin taleefankii waa ay ka qaban weysay markii dambe wuxuu bilaabay inuu raaqibo ama uu dabagal ku sameeyo gabadhan macam gurigeeda agteeda kama tago xilliga ay baxdo xilliga ay imaado waxa ay qabato qofkay la kulanto wax walba unsaa inuu u daba taagnaado ilaa maalin maalmaha kamid ah isagoo asxaabtiisa jaamacadda dhex taagan ay u imaaday ku dhahday hey u digtay waxay ku dhahday hooy haddaa ana raaqibaadda igu haysid aa iga dayn weysid waxaa ogaataa inuu kuu sheegi doono walaalahayga iyo aabahayga waxaadna baran doontaa wejigayga cusub ee xumaanta ah haddii kaleeto iga dabahar wiilkii wuu yaabay wuxuu ogaaday in gabadhan ay daacad ka tahay oo ay karaahsatay amaba ay nacday wuxuu sameeyay marka wax kale uu sameeyay ma harin maadaama uu aad u jeclaa wuu baxay wuxuuna go'aansaday inuu u tago aabaheed mar labaad laakiin markan wuxuu watay dadkii ugu maxaa lahaa dadka waaweyn oo caqilada ah iyo dadkii ugu caansanaa markaas deegaankooda si ay ula soo heshiisiyaan gabadhan iyo freerkooda gabadhana mar kale loo siiyo waa u baxay waxay u tageen odagii dadkii waaweynaa oo shaayikhdii magaalada iyo waxay ku dhaheen waxaan u soconaa gabadhaada waxaana rabnaa inaa wiilkan aasiisid waxa uu ka rabana xumaan ma ahan ilaa xalaal mooyaane odagii wuxuu dhahay soo dhawaada aniga wax mashaakila kama qabo wiilkan inaan gabadhan siiyo laakiin sharadka kaliya oo haystaa wuxuu yahay gabadhayda inay ogolaato haddii gabadhayda aysan rabin wiilkan inay guursatona aniga ma qasbi karo maadaama hadda ay imaadeen waa idinka cududaara jawaabna anaa idin soo siin doona waana mahadsantihiin uu dhahay way iska baxeen marka dadkii wiilka xoogaa rajaa soo gashay wuxuu islahaa maybe dadkaas waaweyn maadaama ay ku raaceen aabaheeda la soo hadli doono dabeetana jawaabaa lagu soo siin doonaa mudduu sugay wax jawaaba ma lahan laakiin intii ugamuuna harin wuxuu soo wacay aabihii gabadha wuxuu dhahaya adeer muddaa ku sugaya aa joogtay aan kaa sugaayo odaga wuxuu dhahay wiilkaygiioo gabadheeda maalmahan xaaladeeda caadi ma ahan mawduuciina weli kuma aana furin anaa jawaab kusoo siin doono iga warsug markay xaaladeeda caadi noqoto arrintan hadda inaan kala hadla ma rabe wiilka wuxuu dhahay haya haddana muddo kadib markii uu joogay waa uu soo wacay mar labaad wuxuu dhahay haya adeer jawaabtii weli kaama haayo qof wax rabo wuxuu dhahay weli jawaabtii kaama haayo odagii wuxuu dhahay wiilkaygu maanta aan safaraan ahay shaqo aan meel kale yaan rabaa inaan tago marka ugu horeysa aan soo laabto anaa ku war jawaabad anaa ku soo siin doono waliba waa ku iman doona wiilkii wuxuu fahmay in odaga maxaa uu iska daba wareejinayo micnaha oo uusan rabin mawduucan inuu kala hadlo wuu iska dhaafay maalin maalmaha kamid ah
hooyadiis waxa gurigooda imaaday eedadood oo aabahood dhalatay iyo isaga oo hooyadiis ay cunto ku babaraysa wiilkii inuu cunto cuno ma rabo inuu dad la hadlo walaa wax abo walaa wax cuno walaa meel aado midna ma rabo gabadhi ay miyadiisa raacday sababta ay waxaan ugu sameysay iyo qaabka ay familgeedu ula dhaqmeen familgeedu dabcan si xun ulama dhaqmin gabadhi un baa diiday Soomaha marka gabadhi uu maskaxdiisa ka saari waayay eedadiisa imaaday marka guriga hooyadiis oo dhahaysa waa ku baryaa wax yar xitaa waxaan yarkaa xitaa ab ku tugtoogaysa eedadu waxay tir maxaa ku dhacay wiilka waxay dhahday sidii gabadhaas loogu diidayba wiilka saan noqday waxna ma cunaayo waxna ma cabaayo arrintiisa saan waay eedadu waxay tiri yaa anaa tusaayay dhahday gabadhaas iyo familgeedaba inay wiilkaaga hoostiisa ay soo fariistaan waliba intay u yimaadaan soo wacaan iyaga in raali geliyaan anaa ka ballan qaaday tiri si u diidi karaan wiilkeena qarrac sheeko saxmada laakiin wax weyn lagama soo qaadin sababta waxa loo maleeynaa la justi micnaha in wiilkeena see loo diidi karaa amal iska hadal oo caadi ayaa loo maleeynaa laakiin wiilkii oo sidii eedadu ku baxday wiilkii gabadha niyadiisa way ka baxdayba familyiga iyo wuxuu dhan farahu ka qaaday odageena wiilkii walba markasta ku soo noqon jiro oo soo wixii jiray waa uu waayay ilaa maalintii dambe gurigoodiina xaalada ku soo siyaadeen problem uu ka dhacay odagu wuu isweydiiyay wuxuu dhahay wiilkiisaan ku soo wici jiray dadka inuu weydiiyo bilaabay wuu waayay waxaa dhacay marka gurigoodii waxay arkeen calaamado cusub مثلا waxay arkaan subaxdii markay soo kacaan oo kaleeto darbiga wax ku qoran yihiin qoraalo nooc kala waxay arkaan subaxdii markay soo kacaan fadhigii oo guuray maarta a'uudu billahi minash shaytaan rajiim fadhigii meesha jikada lagu ogaa fadhigii ku yaal meesha fadhiga jikada ku taalo mararka qaar subaxdii markay soo kacaan waxay arkayaan jikadii oo banaanka hore ku taalo xooshka aaday subhanallah a'uudu kalimatillahi taama min sharri ma khalaq waxay arkayaan wax kasta kala wareegsan wax kasta qolkii wisdaba marayaan musqulihii wax kasta sidoodii ma ay kala wareegsanayaan ayagoo sida la yaab darbiga qoraala ku yaalo wax kasta sidoo kale ta gabadhii shooga ku dhacay waxay soo kacay ayadoo qaylinaysa waxay iska noqoto qof xanuunsan mararka qaar iyadoo waxay soo kacay qaylinaysa kula maxaa kugu dhacay waxay leedahay waxaan hurdada ku dhex arkay ninkii khadiibkayga ahaa asagoo god intoo ii qoday igu aasayo anigoo nool aan dhahayo iga leexo u dhahayo hadaa aniga ku yeelan waayo qof kale kuma yeelanayo oo qabri igu aasayo aan ku soo kaca markaa maaga qaylin codka dhana iga tagaayo dhahday sidaas ku soo kaca sidaas oo kale mararka qaar waxay soo kacaysaa iyada waxay ariyada ku aragtaa duqdii oo eedadiis ahayd wiilka khadiibkeeda eedadiis oo ceejinayso xumada qabanayso horta qandhaas markay qabato duqdaas u imaanayso markasta oo ceejinayso gabadhana isdhooso dareemayso inay dhiman rabto ee dareemayso marka hooyada quraan ay ku akhrisaa quraankaas markay xogaa ku akhriso qandhadu way ka jabtaa hada ayeen iska noqotaa iyagoo problemkaas haysto gabadhoodina aad u rafaadsan tahay gurigoodii mashaakilkaas uu ka taagan yahay oo saas u kala wareegsanayo odagii wuu baxay wuxuu raadiyay wiilkii wuxuuna isku dayay inuu waco laakiin wiilkii taleefankii kama qabanayo cidda dhan wuuba iska hilmaamaba maybe wixii duqda sameysay baa wiilka cidii kasii jeediyay wixii maba uu xasuustaba muddo kadib soo wiilku wacay dadka uu weydiinayay maalinta dambe waa odaga waa uu ka qabtay taleefanka wuxuu dhahay waladii maxaa ku daar taleefanka maxaa iga qaban weysay wuxuu dhahay wax kala kaama rabo wax dhiboona ma wato kaliya waxaan rabaa odagu wuxuu ku yiri hadaa gabadheeda wax adiga ku sameysay biliis waxa ka codsana ina iga furtid waxaan iga furtid haday gabadheeda fiicnaatana gabadheeda aad u dhibantu u dhahay waa ayba dhiman rabtaa haday fiicnaatana waxaan ballan ka qaaday waxaan ka furtid inaanba iyada kugu daro dhahay ee biliis i caawi gabadheeda waxaan iga fur wiilkii odaga wuxuu ku dhahay wallahi aniga gabadhaada waxba kuma sameeynin laakiin wuxuu dhahay hadii gabadhaada wax lagu sameeyo dhahay waxa ku sameeyay dhahay eedaday aniga ayaa waxa maqlaayo dhahay iyadoo dhahayso anaa cidaas gabadha iyo reerkeeda hoostiina keenayo oo ku tusaayo inay ku soo maxal dhahaa ay ku soo wacaan kuna raali geliyaan gabadhana saas ay ku heshay marka hadda marka arkay maalmahan adoo isoo wacaysid aan dhahoos hadda problemkana gurigeena ka taagan waxaan yaqiinsan u dhahay inay eedaday qaladkaas ay sameysay odagu wuxuu dhahay okay si ciwaanka eedada ciwaankeedu qaatay wuu baxay wuxuuna u tagay guriga eedada wuxuu ku dhahay adiga miya waxa gabadheeda waxaan ku sameeyay duqdi way qosashay qosol oo jees ah waxay tiraha aniga ku sameeyay hana ku daalinay dhahdo waxa isku dhibin inaad isku daydo in gabadhaas wax sixirka gaas kaaga furo waxaan u sameeyay tir sixir qatar ah oo waliba kii dhimashada ah ani waqti gabadhaada way dhiman kartaa tir ani waqti bay dhiman kartaa soo had tagaydaada gabadhaada soo mac salaameen wadaaci dhahdo gabadhaada inay dhimato saacadaha soo socda laga yaabaa
odagii wuu baryay wax si walba ula hadlay wuxuu dhahay wax alla waxa aragtid waa ku siinaa biliis gabadheeda waxaan iiga furo dhaha ii noolaata in iga dhimata ma rabeen waaye dhahday odaga duqda markii dambe waxay dhahday okay gurigaaga tagaa 7 nin ee la socoto aan waxaan tagaa dhahday gurigaaga gabadhana saacirka sidii ugu furaa waaye uu dhahay odaga soo markii hore yaabay bulbalanta ka soo qaaday wuu soo tagay laakiin isla markii uu duqda ka soo tagay guriga way taqaan way imaanaysaa Soomaaliya isla markii uu ka soo tagay wuxuu imaaday askartu u tagay xaaladii dhan u sheegay ABCD wuxuu ku dhahay waxay ku dhaheen gurigaaga dhan waa ina camera ku xirtaa meel kasta si loo ogaado qaabka ay wax walba u dhacayaan sidoo kale tan waxay ku soo dareen 3 nin oo askar ah oo laakiin dhar caadi wadato duqdi waa soo baxday way imaaday gurigii markay imaaday gabadhii gacanta ka qabsatay qolay la gashay aabeed wuxuu maaga daba raac waxay tiri iga har wuu ka haray gabadhii markay qolka laga soo xirtay dharka iska siib xijaabka iska fur dharkan iska siibay dhahday wayna soo noqotay waxay u imaaday odagii iyo nimankii meeshii fadhiyeen u imaaday waxay ku dhahday waxaan rabaa ay dhahday guriga darbiyada magacyaasha ilaahay waaya magacyaasha ilaahay oo ku qoran ina ka bixisiinaan rabaa ay dhahday kitaabada quraanka ee guriga dhan banaanka u baxshay dhahday guriga ka bixiyay dhahday maxaa dhacala maxaa waxda bixin ana ka bixinay dhahday ويا بنت كده ويعبسنا مش هنسكفر إنه كده ويعبسنا كوس تقف وحلا عبسة دوايا تصير وذا عبسنا سواء كل سنة وقت المكحف محل عبسني السن محاول إذا كان عبسة يكرر إذا كان مقدر هذا كمان مصلحة هذه فاميلي إنه مصلحة سنة كتلنا وياي محل عبسني السن وكتكتي وحي أتكتك جبردي وحي تري بح رمز خوش قل سوق بيسو شكومان ودي تعتر شكومان كان جركا دن كسو مسح مركا سوق بيسو مركا وحي تجرا دن كسو مسح هذا إيكان gabadhii waayay dhahday musqushay gashay shukumaankii qaaday jirkeedana ku soo masaxday way u keentay markay iskuul soo gashay gabadhu xamada meel calaamad oo maartay saan wareegsan dawaarad maalaha oo saas ad wareeg ah oo guriga ku dhex sawiran waxay dhahday meeshii shukumaanka saartay waxay dhahday ku dhex seexo gabadhii way ku seexatay waxay tiri kullama aad dareentid maarkino jirkaaga meel ka mid ah dhahday aariyo iyo waxyaabo marka dareentid waxa dhahdaa hay tiri waxaa leedahay tiri soo gala kulligiin camal taas camal leedahay tiri bilcarabiga wish tiri soo gala dhehaysaa dhahday duqdiina cuud ur badan way shiday gurudana ku shiday waxayna bilowday inay ku hadasho luuqad kale oo aan cidina fahmaynin subhanallah a'udhu billahi minash shaytanir rajim allahumma najina kullu shar ya rabbi markay saas u dhaysay gabadhii way soo isaatay duqda wallahi kaamirada xataa hadda waa arkay inta ma soo dhigi karino waxay dhahday marka way qabanay dhabarkay saas u riixay gabadhii meel kasta waxa uga taagan aariya jirkeeda dhan duqdii dhabarkay wax u riixaysaa maxaa ka galay cajiin camal gabadhii marka way qaylisay waxay tiri adigu waa idiloosaa dhabarka maxaa waysaa iga yeeloosid waa dhiman rabaa mar rabi bisiga dheh gabadha ixtira aamus maslaxadaada ani ka shaqeynaya wax yar kadibna waxaan way iska dhamaanaya ayuu saduqdii wadada nimankii banaanka fadhiyeen nin kamid ah wuxuu arkay wax musqusha ka soo baxay oo daamansa u dhex maraayo oo qolkii sii galay wuu soo qaaliyay wuxuu dhahay inaa waxba ku soo galay qolka wax markaas qof camal ah laakiin qof si u qarsan camal duqay tir afkaaga heeso subhanallah wixii la wacabsanayo hal qolka kaliya ku jira xeelad markii iga aamus وإمادي وحن اسمينو صورنا حركات أسكرتا وحي كداونويان كاميرا كداونويان أسكرتا واي وجودان وحي كدب دير قبل مركي قال سويت كي سويسي هذا واحد سوق لي أسكرتي سوق شيء أسكرتي مركي سوق شيء دقد وحي سمي السبب يدي كل جد اسقبته هلع عبحي كتابة يقولوا لأنه ويقبتي كدي واحد سمي قبل أنتي وإمادي نعم هلع عبحي هلع ما هو حقوبة ما حتى يقولوا عندهن مركزتا fadhiyaasha qadada waxan ay kala wareegaan dabkaasna way arkaan laakiin dabku dadkana ma gubaayo maxaa la dhahay waa wax una cabsi gelin ah walaa warqad guri dhaxaystaa lama gubanayso laakiin guriga dhan holcasa isqabsanay duqdi marka holci isku sii daysay gabadheena waxay ku dhahday waxa aragta hadaa sheegtid ogow kawa kaasina waa dhimanaysaa ay dhahday sidii gabadha duqdi askarta way wadaan 4 bari ay xabsi ku xiran intii wixii xaaladii wixii taxqiiq la sameeyay la xiray oday waa uu orday wuxuu keenay sheekh iyo gabadha iyo gurigii in quraan la saaro baa la rabay quraankii la saaray oda sheekhi markii dadka ruqyada aqriyo markii loo wixii dhan loo sheegay wuxuu dhahay wala sixir ay rabtay inay idinka furto ma jirno dhahay gabadha sixir meesha ka furaynin oo dhahay laakiin waxay u sameeynayso dhahay qurbaan salama dhaw
qurbaanay u sameynaysu dhahay oo jirkeeda oo dhan bay waxay xarun uga sameynaysaa la dhahay shaydaankii macnaha inay jirkeeda oo dhan ay soo galaan adi qurbaanay ugu sameynaysaa la dhahay gabadha jirkeeda ku casuumaysa shayaadiintii iyo waxyaabihii maahane xaaladay sii adkeyna sameyn wax ay idinka furaysayba oo ilaahay unta ma lahayn oo dhaho odagii ilaa yowmina haada ayaa lahay gurigii sidii xaaladiisu u taagan tahay oo waxaa la sidii codadkii looga maqlaa iyo waxyaabihii oo dhan xaaladina weli lama xalin oo si meesheedii ayay maraysaa micnaha arrin oo weli go-aan laga gaaray ma ahan والله عبسي والله بالله تالله إله ربي وحجن يسحر يبلاي قانا وحبها نوغو دارين مرة والباء وحافي عنها دا أذكرت هذا وأنا أذكرت أقرصت الصباح على مساء هذا معناها أذكرت أقرص هذا دكتور القرآن كذا سورة البقرة أقرصت تقول معناها كشدة شردا اسم أركيسين إله ربي هذا نحجاب كريه ذو نحجاب waxana waa wax jiro waaye oo qof walba way la kulmi karaa laakiin ilaahan ka magan galaynaa ilaahay inuu naga shartiro intii dhibaatooyinkaas haystaan ilaahay ka dulqaado fiidiyana maanta inta soo kusoo gabagabanayna inta fiidiya lamid ugu kulmi doono waxa idinku dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaatuh